kusoo dhawaada daawadayaal xubinteennii ganacsiga tiknoolajiyadda oo saameyn ballaaran ku yeelatay ganacsiga waxaa waayihii dambe soo badanayay shirkadaha ka shaqeeya sameynta softweerada iyo dayactirkooda. Sostec waa shirkad ka howlgasha magaalada Muqdisho oo hindista aaladda softweerka waxaana maalmihii dambe sare u kacayay dalabaadka uga imaanaya ganacsatada Soomaaliyeed iyada oo taa loo sabaynayo casriyeynta ganacsiga oo kordhayay sanadihii dambe si ay ula jaan qaadaan heerka ganacsi ee caalamiga ah iyaga oo wax ku xisaabsanayay kuna diiwaan gashanayay softweeradooda. waxaase jira xarumo ganacsi oo aan wali ku baraarugsanayn ahmiyadda ay tiknoolajiyadu u leedahay sare u qaadida ganacsigooda. sidoo kale waxa ay soo tarayay hal-abuurada ganacsi oo ay sameynayaan ganacsatada ka howlgasha magaalada Muqdisho iyo guud ahaan wadanka iyaga oo waayihii dambe wax ku soo saaraya gudaha dalka si gacan looga geysto kobaca dhaqaalaha. ama warshada Samsung Food Industry waa warshad ku soo siyaaday Soomaaliya ama warshadaha ku soo siyaaday Soomaaliya ka mid tahay waxaana runtii loo abuuray warshadaas oo dad Soomaaliya ay maal gashadeen in laga qayb qaato ayaguna faa'iido ka raadsadaan dalkana ay noqoto wax maalgelin shaqo abuurid wax oo dhan ay u keento. waxayna warshadu ka kooban tahay 3 qaybood. qaybta koobaad waa cabitaanka Samsung Foster oo 4 nooc ka koobma mango, orange, vimto iyo ananas. qaybta labaadna waa chibiska la yiraahdo Samsung oo ma sha Allah magaalada aad ugu jira aadna dadku wada yaqaanaan aad loo bartay inkastoo runtii muddo hadda u socday tahay muddo 2 bilood ah. shirkadaha ku ganacsada magaalada Muqdisho ayaa waayihii dambe horumar ganacsi ka sameynayay iyagoo wax ku warshadeynayay wax soo saarka dalka. shirkadda ganacsiga guud ee Zamzam ayaa ka furtay xarun lagu sameeyo jibsiga magaalada Muqdisho iyadoo u iibgeysa gobolada dalka halka markii hore laga keeni jiray wadamada dariska nala ah taas oo kor u qaadi karta wax soo saarka beeralayda oo waayihii dambe laga dareemayay hoos u dhac ku yimid beeraha. mana ahan markii ugu horeysay oo ganacsatada dalka soo kordhiyaan adeegan waxtarka u leh bulshada Soomaaliyeed.